السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو maanta waxaan idinkula qaybsan doonaa ama aan share garan doonaa 10 website aad ka sameyn kartid lacag isla maanta isla waqtigan. shanta website oo ugu horeyso waxba uma baahno oo maaragtay ama skills ma u baahno ama khibrad ma u baahno. shanta dambe waxa u baahnaan doonaan khibrad ama skills u baahnaan doonaan. laakiin good news waxaan idinla qaybsan doonaa insha Allah website ama link maaragtay meesha description-ka وأنا في ريسيت إن شاء الله أكيل كرتيت المعاملات كاس أمس تريننج أكيل كرتيت إن شاء الله مركز ديسكريبشن كان فيري وقدام بنت إن شاء الله إن channel كأن تاكلينه سيم ماركتا إن هرا أو سعون إن شاء الله إن كمبلال كان يشدرو ماركتا follow subscribe سمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So let's dive in. ويب كوكو دحونا قندونا Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk سأوجدين وكنا عس إن كور ماركتا مش search كوحكور Amazon Mechanical Turk ku qoraysa website kana ku soo baxaya sida website ku akhrinayo waa arkaysiin waa crowdsourcing oo marketplace waaye dad badan shaqo soo gelinaya marka dadka shaqada soo geliyaan adiga wixii tabarta ka qaban kartid shaqadaas aad qabanaysa marka fee for service waa shaqada marka haru qabatid you get paid isla markii way ku siinayaan marka waxa waaye shaqo yar waaye oo sida tusaale ahaan ay maaragtay virtual assistants oo kale ama qof u baahan in loo monitor gareeyo some kind of ad ama email qof loo diro ama waxyaalahaas oo kale waaye marka you don't need a lot of experience ma u baahnid Amazon Mechanical Turk midka koowaad kaas waaye website-ka labaad insha Allah wuxuu noqon doonaa sana Microwork asana waa kana waxaa qoraysaa www.microwork.com markaad tagtid caadi meesha register ay ku qorantaa click siinaysaa waa register garaynaysaa marka website-ka وأسا أجدد أسنا معنا دادا شخص وقلنا بدنا كان وحواي ما ركتا إن داد لوقبتو like a landing page عمل لو ديسو أما ما ركتا data collection لو سميه research لو سميه transcription أما عدك اللي بدلايو دادك أباهان إن لو سميه ما ركتا وحلو يقانو sentiment analysis surveys waxaasoo dhan marka marketing hadaad samayn kartid moderation hadaad samayn kartid asna wuu leeyahay waxyaalo badan aad samayn kartid aad jirto in order to get paid marka waa soo galaysaa website-ka markaa soo geshid waa register garaynaysaa register kor uu ku qoran yahay register garaynaysaa halkaana ujeedid waa kasii soconaysaa marka number 3 waxaa loo yaqaanaa user testing number 3 waxaa waaye user testing asana waxaa waaye website oo website-yada kale oo market ku cusub ama website-yada kale wax ka qaldan yihiin ayaa testing ku sameynaysaa sidoo website ku shaqeynayo haddii uu adag yahay haddii uu fudud yahay wixii ka yar qaldana u malaysid inay maaragtaa dhib maaragtaa website-ka maaragtaa lagu dhibsan karo oo kale waxaa sameyn kartaa surveyna waa sameyn kartaa tusaale ahaan macnaha haddaa website-ka geshid gudihiisa waxaa ku jira McDonald's, Starbucks, Tesla, Ford, Uber, AT&T waxyaalo badan Facebook aad sameyn kartaa caadi maxaa la dhahay testing ku sameynaysaa abyaalkooda markaad testing ku sameysid markaad dhameysid lacagtaada ay kuu soo dirayaan asana caadi maxaa la dhahay wax badan complicated ma aha su'aalo ma ku weydiinayaan automatic waaye join today adaysa join today markaad aadid caadi maxaa la dhahay then uu ku ogolaanaya shaqada caadi maxaa la hore kasii wadanaysaa alright website afraad inbox dollars asna waa kana inbox dollars al dhaha www.inboxdollars.com kana marka waxaa waaye waa reward system way kan rewardkiisa wuxuu ku fiican yahay coupon ku siinayeen waxa ku siinayeen actual cash ku siinayaan so marka so maaragtid earn cash for your everyday online activities kulay online oo ku jirta waxay qaqabanaysay online ka qabato la sameynaysa soo shaqeynaya ku sharxaya marka brands waxay ku leeyihiin dadka kale ayaa nabay gareynayaan adiga ku shaqaaleynayna kadib shaqooyin yar qabanaysaa survey qabanaysaa video fiirsanaysaa TV fiirsanaysaa cuntooyin oo maaragta redeemable ah jira marka free coupon camal ku gadanaysaa then waa kana step 4 waxa way earn cash no points meelo badan maxaa jira like
pointyaal inaa pointyaal badan aa keentid waaye si oo maarkin oo au cash galaysid laakiin kan ma laha waxaas they really very good ani account aan ku leeyahay kan is one of the things that I use laakiin you have to know $15 inaa ka samaysid waaye si aa check out garaysid check out si aa u samaysid $15 inaa ka samaysid waaye so marka so maaragtid aada maxaa dhahay badanaa maxay bixiyaan 50 cents ilaa iyo $5 inta u dhaxayso 3 minute ay kugu qaadanaya 3 to 25 minute ay kugu qaadanaya ilaa intaas qaarkood waxaa jiro bixinaya $10 $20 ilaa wax ka badan bixinaya khaasatan kuwan oo maaragtay oo like brand marketing ka sameynaya oo kale ayaa ku badan marka waxaad fiirsan kartaa videos sidii oo kale and then games aa ciyaari kartaa online shopping waxaa sameyn kartaa and then hataa like waxay kugu siinayaan inaa email akhrisid waa kana caadi ku qoran yahay meesha gashid get paid to read emails kliga ku siinaysa caadi it will give you more marka sidoo hataa waxay bixiyeen website kan caadi maxaa la dhahay 80 million oo cash rewards ay bixiyeen sanadka hadda soo dhaafay so it's ada reviews aa fiirisid waxaa ka bixiyay review like 29,815 people aa ka bixiyeen wuxuu haystaa all of them 5 star ay siiyeen 5 star marka partner yaka la shaqeynaa waxaa ka mid ah Netflix, Target, HR Block, Walmart kan waxaana uu ku fiican yahay is international you sign up markaa sign up garaysid as soon as you sign up first waxay kugu soo dhaweynayaan $5 inta kalena inaad shaqaysatid waayo then markaa shaqaysatid it will pay you every $15 waa cash garaysan kartaa weekly monthly ay soo diraan lacagta laakiin anytime adiga waa cash garaysan kartaa so qaybtii maarata kan shanaad oo u baahneen asana skill waxaan dhanay shanta kood skills ma u baahno Geekwork mid la dhahayo Geekwork asana waxaa waaye website oo ku baygareynayo maaragta in aa qabatid shaqooyin yaryar kan wuxuu ku fiican yahay ani markaan si fiican u fiiriyey isheeg wuxuu ku fiican yahay like in person marka in person qof shaqo u qabanaysa meel aa u tagtid maaragta bookkeeping oo kale like office desk oo kale waxyaalahaas oo kale sameynaysid oo ku fiican yahay laakiin asana wuu leeyahay watch videos caadi maxaa la dhahay data sheets can request this how works marka you create an account caadi maxaa la dhahay profile aa dhisanaysaa dada lagugu maasha gareynayaa and then caadi boom aa shaqaysanaysaa so asana saas oo kale waaye both way marka virtualna wuu leeyahay in personna wuu yahay okay marka qaybtaas uma baano kuwan ma u baanid any skills ma u baanid haddii u baahan yihiin adaa u baahantana wax yar waaye and it's something badana ma u baahanid so because I use it anaa use gareeya kuwan 3 or 4 of them anaa use gareeya you don't need skills so marka number 6 which meesha marka qaybtan waxaan ka gelaynaa qaybta u baahan skills number 6 Toptel waaye Toptel is a company oo shaqaaleeyo maaragta really high skill maxaa la dhahay freelancers haddaad specific skill leedahay like caadi maxaa la dhahay marketing management oo kale transcription translator things like that marka industryga ay u shaqeeyaan kuwan marka healthcare life science consumer product and services financial haddaa magaranaysa xisaabtaa ku fiican tahay industrials communications media iyo technology intaas waxay la shaqeeyaan maaragta field ay leeyihiin six field waya so marka this one needs a lot of maaragta wuxuu u baahan yahay certificates and caadi maxaa la that's why they call it top 10% top 3% top 3% or highly skilled people hire gareeyaan which means it doesn't mean like maaragta 100% markii la fiiriyo the entire world 3% lay hire gareeyaan macnaha saas ma kala jeedaan 3% on the specific field for example haddaad turjumaan aad garanaysid and resume fiican aa haysatid maaragta caadi they will hire you there you go that's Toptel kan waxaa waay usually freelancer way marka caadi adoo xaafadda joogtaa iska baashaalaysaa alright number 7 waxaa waaye Upwork anaaba isticmaalay I personally use it
asna waxaa loo isticmaalaa IT iyo dadka IT ku fiican, app develop ku fiican, web develop ku fiican, and things like that. Mise waxyaalo kale technical staff ku fiican. Waxaa kaloo ay sameeyaan designs. Maaragta tusaale ahaan haddii website design garanaysid, video editing hadaa garanaysid, picture editing, haddaa sales garanaysid oo marketing asna waa xeergaranayaan, writing and translation way sameynayaan, admin and more iyo wax kale kasii badan. Tusaale ahaan haddii oo accounting aad garanaysid, finance, HR training, legal haddaa garanaysid, engineer, architecture okay marka intaas oo dhan ay sameeyaan, and it's really good. Kan waxaa waaye marka hore free u ahaa, hadda laakiin haddaa gaarto certain I think income kaaga ku xiran yahay, waxaa you have to pay them. So trusted people oo la shaqeeya waxaa kamid ah Microsoft, Airbnb and GoDaddy. GoDaddy waxaa waaye website asana oo maaragta oo sameeyo domains haddaa u baahan tahay. You can buy domains. They also do hosting too. They host websites, and they have their own checkouts and things like that. It's really cool tool. GoDaddy aldaas marka in dadkaas la shaqeeyaan, and any talent dalada caadi waay. As you can see it, you can post a job dad shaqaaleynaysid inta shaqaaleyn kartaa. You can also find a job, and you can buy projects. So waxyaalo badan ay qabtaa marka kana caadi maxaa dhahaye waxaa waaye waa highly skilled inaa ahaatid waay. I've seen tusaalehaan haddaad fiiri haddaa inta searchka aan ku qoro watch this Somali tusaale ahaan haddaan ku qoro because af Somali ku hadlayna mugtahay. Look at this. caadi maxaa la this guy Ismail caadi maxaa la Ismail W, multidisciplinary Somali translator, public speaker and diversity trainer, $65 an hour. Yarkan oo maaragta ku waxaynaya maaragta ku judge garanaya client things. So far this is true. Kan maaragta $400. This is caadi maxaa la dhahaye actual money that he made from this caadi maxaa la dhahaye website kan uu ka sameeyey, maaragta $65 waaye, maaragta uu ku judge garaya. You can maxaa la dhahaye websitekiisa waa kan iska dhaaf, you don't need that. You can waxaa tagaysaa profilekiisa and waa shaqaaleynaysaa and all that. Gabadhan professional translator waay Adil la dhahaa, marka iyadan tusaalaan $19 marka sidoo it's all about waxa iska dhigtid waay. Interviewer Muxuddin, medical interpreter lowest domain degan yahay Muxuddin, $60. I actually know this guy. $60 asana uu ku qiimeeyay maaragta per hour. So far wax ma shaqeynin and he did not earn anything. Same thing gabadhan, because dadka sometimes waxay sameynayaan they create hype inta yihiin best way. They create an account and way iska dhaafayaan. You know what I mean? But last year I've seen a guy kanad oo kale caadi maxaa la dhahaye this guy Charles interpreter waaye, and $300 on grade, $600 Bushra or Bushar, $600 Arabic waa malaynaa. caadi maxaa la dhahaye gabar kale waatan Ihlam Somali waa iyadana $20 per hour ay value ku samaysay, then 100 she earned $100. But I've seen I think it was last year I've seen some guy that made $10,000 from this app, just this app alone in 6 months. So it's very good one to caadi maxaa la dhahaye to lacag si ugu samaysay. All right, that was number 7. Number 8 wuxuu noqoni doonaa insha Allah Fiverr.com. Fiverr.com waa anigu waan use gareeyaa, tusaale ahaan haddaa u baahan tihiin in maaragta caawinaad dheeraan u baahan tihiin to set it up, let me know. Meeshan aa ujeedid this is the money that I spend. Tusaale ahaan waxaan shaqaalay I'm a marketer, so like I'm affiliate marketer, and a lot of times I don't have shaqa caadi dhawaan aadaa marka, and I have a family and all that, marka ma haysti maaragta a lot of time, so I hire these people to maaragta and to do a job for me. For example, the order meesha order aan tago waxaa maaragta complete ku qoran yihiin all these. Haddaa view garay all of them, view all your orders. Tusaale ahaan waa kuwana, you can tell what I spend. caadi maxaa la $38, $7, $170,
48 waa sii socdaan. All these things maaragta oo riyaalka anaa order garaystay and I paid people to do job for me. Why? Because it's worth it. So that's how I do things. Waa shaqaaleyni kartaa, but that's not what we want right now. I mean haddaa busy taa waa samayn kartaa, yeah, but waxa hadda arabna waxaa haddaan switch to selling aan dhaho watch this. Let's see. Ani waxaan sameeyay so ani marka I have so for example if I click gigs that click kusiyo bahalkan soo maartid anaa saraf gareeyay 100 and anoo waxba sameynin de 124 people are clicksiyan waa to translate English to Somali and vice versa. English waxaan ku bedelaya Somali, Somali waxaan ku bedelaya English. Turjubaan camal waaye but oo qoraal soo maaha. Marka inta meeshaan create meesha ku qoran create gareynaysa caadi maxaa la dhahaye marka badana it's not the only thing. Marka maarata tusaale ahaan if we go back to buying inta daa ku qortid, let's see Somali because of Somali ku hadlayna. Somali ku qortid, watch this. I will do Somali female voice over maxaa waaye tusaale ahaan qofa af Soomaaliya rabaa in qoraal oo loogu dhaho marka qoraalka uu kusoo diyaarinaya codaad u saaraysa. Marka qaasatan badanaa gabdhaha sameeya, it's really beautiful. I've seen tusaale ahaan and this person 18 people are review ka bixin 4.9 which is good. Can 3 people iska dhaaf, but check this out. Gabadhan tusaale ahaan 25 people are review ka bixin, which means this 25 people ay qabatay shaqo time ku dhufo adil ku dhufo. Some of them are the direct message kusoo dirayaan and gooniya ula xiriiri kartaa, but this is something you can set up easily. And if you guys need more tutorials or sidii freelancer ka loo sameeyo caadi maxaa la dhahaye loo geliyo meeshan waa idin tusi karaa, laakiin it's gonna need a whole and waxay u baahnaan doontaa a whole new tutorial u baahnaanaysa. Marka I don't want to deal with it right now, but you can see the idea ku arkaysa. So marka caadi macallin Cumar ka tusaale ahaan wuxuu leeyahay I will provide voice over, marka $10 charge gareeya 5 qof ka codsatay and qofkan asana wuxuu leeyahay waxaan translate gareynaa Swahili, Somali and Masai in 24 hours, $20 why 13 people isticmaaleen. You can see the idea. So marka caadi yarkan maxaa la dhahaye asana is good and judge me whatever that is. I will translate your documents from English to Somali and vice versa. English dayin Somali u bedelaya, Somali dayin English u bedelaya. 39 qof ka codsatay $5 lagu ku judge gareeya because it's cheap. So marka haddaa wax kale camal kale haynin maaragta caadi maxaa la skills kasna leedahay, this is a good opportunity for you to make money online. caadi maxaa la dhahaye opportunity fiican waaye ama fursad fiican waaye lacag ku samayn kartid online. Inshallah Ilaahay ha fududeeyo. So number 9 wuxuu noqon doonaa asana and freelancer, hired freelancer, freelancer.com al dhabish. So marka freelancer.com kan you can earn money as a freelancer. You can hire hire gareyn kartaa, let's say and lacag rabna anaa ka sameyno. Okay, it's telling us to join, so let's go back. Okay, so marka sawa marka you can post the projects or caadi waxaa noqoni kartaa and affiliate ka noqoni kartaa and maaragta adaa waxaa post gareyni kartaa and shaqooyinka yani arabti dadka kale inaa u qabateed. So marka meesha maaragta find freelancer ku qoran tahay or buy a skill maxaa la dhahaye markii qof uu ku dhufto meeshan uu imaado and all this design haday rabaan, haddii writer ay rabaan, haddii SEO ay rabaan, digital data entry clerks, virtual assistants, waxaan dhan waa noqoni kartaa. waa kana marka sidoo find freelance translator markida and let's see translator caadi marka waa kana English, find English translator. I don't see Somali here, like you can add it because I know for sure a lot of people that in my circle or استعمالنا جرا that I know I've seen it before. أنا ما استعمالي personally as عبد صلاد ما استعمالي, لكن it's good website عادي محل to use it for
haddaa u isticmaalaysid maaragta in oo aragtid servicekaaga banaanka aa geysid whatever services aa haysid caadi maxaa dhahay meeshaasaa gelinaysaa and allahu aclam lacag sameynaysaa. So number 10 wuxuu noqon doonaa task rabbit. asna waa kana your house deserves better. kan wuxuu ku fiican yahay badanaa dadka jooga European countries iyo America uu ku fiican yahay specific skill uu baahan yahay because idea dad siinaysaa no marka kan wuxuu kaga fiican yahay kuba kale is tusaale ahaan aniga maxaa dhahay area aad joogto St. Paul hadda for example wuxuu ku fiican yahay. The reason I said Europeans and America ku fiican yahay because kan online ma laga sameyn karo. Haddii online laga sameyn karna I think it will be very tough. Lakin this is the job marka caadi maxaa dhahay projectiga table and desk simple waa dhisaysaa bis. Haddii qof table soo gadanaya ama kursi ama miis soo gadanaya waa xirxiraysaa literally that takes the qof oo maaragta oo maaragta fahan badan leh oo raaci karo instructions ama oo raaci karo maaragta hagitaanka maaragta instructions raaci karo you can make it $30 ku sameey 30 minutes ku sameyn kartaa $100 right there $44 to $100 TV alka markii darbiga lagu xiraayo ku xiray darbiga ku xiraysa waa kana mount a TV on a mirror or a mirror project caadi maxaa dhahay waxa qaadanay TV lagu xiray darbiga 20 minutes 15 minutes ay qaadanayeen 10 minutes hada qaadanay you make $100 ka banaanka waaye si hada box track ka dejinaysid hada cleaning and sameynaysid and office and home delivery hada sameynaysid delivery like can $18 to $28 an hour waaye okay marka that's how it works. marka waa imaanaysaa waxaa dooranaysaa maaragta waxa aad skillka oo fiirin horta waxa maaragta review ku sameynaysaa skillka aad inaad gelisada qabatid meesha gelinaysaa then you set your price kaaga marka aad sameysid schedule caadi maxaa dhahay qof aad soo codsanayo schedule ka sameynaysaa and then waa qofku waa la hadli kartaa aday a lot of these people badan lacagta waxa lagu sameeyaa maaragta tip because these people maaragta wax oo ayaga ay sameysan karaan ay maaragta because time-ka u ogolaanaynin adaa u sameynaysaa marka they will be happy and waxay ku siinayaan marka money. So marka let's look at this guy do aragta maxaa dhahay Jeffrey Segan cadaankan caadi maxaa dhahay wuxuu qof ku caawiyay in uu guuro saacadii intaas waaye home repairs intan ku sameeyaa and then saan camal u setup gareynaysaa. So you should be good. عادي محل ده you can also search by key check by zip code. So adapted. This is why I said عادي محل ده so these are the meelaha uu ka jiro inside the USA intuu ka jiro waa kuwana intan oo gobol ku jira Florida, Hawaii, Arizona, Connecticut, Louisiana, Maryland, even the cities wuu ku sheegaa Massachusetts, Michigan, Minnesota, maxaa kale Nebraska, Allah musta'an, New York, state qaar uu ka jira which means so marka fiiri and these are the other European kale waxaan ku reebay let me see but yeah some Asians ku jira so United Kingdom, Canada, France, yeah European way France, Germany, Spain, Portugal and Italy. So marka intaasoo country ku jiro kulli waa European countries. You click the country aad joogtid ku dhufanaysaa haddaad joogtid United Kingdom waa dhagsiinaysaa and waa kuwana intay kasoo baxayaan Birmingham iyo caadi maale Brighton, Bristol, Cardiff, Coventry, Eden I don't know kuwan si loogu magacaabo Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Northampton waxaan dhan meesha way ku jiraan. haddana waa bedelan kartaa you go Germany Soomaali badan Germany joogaana jiraan ayagana waa kuwana I'm not even gonna try to pronounce it because Berlin waa kuwana ay buuxaan. So marka waa ku dhufsanaysaa siriga ku dhaw ku dhufsanaysaa and then shaqooyinku ay soo baxayaan waa shaqaysanaysaa sheekh marka that was caadi maxaa dhahay top 10 waaye
u baahneed. Marka labo website oo bonus aa jiray, and I told you guys bonus aa jira. The bonus is website waxaa jiro skill aa ka baran kartid, skillkaas aa ka baran kartid. Skillka kelina ma ahan, maaragta waxay isugu keenaya opportunity-ga maaragta Upwork, Fiverr, freelancer.com, maaragta iyo kuba kaloo fara badan, maaragta hal meel, even Facebook ay hal meel isugu keenayaan opportunity-ga, maaragta dad meesha lagu soo post gareeyo ay hal meel isugu keenaan. Marka caadi maxaa la dhahay way ku barayaan, certificate ay ku siinayaan oo maaragta oo like ii sheeg that you completed the training and you can do those jobs. Shaqooyinka waa la soo gelinaya. Marka maaragta waxaan kusoo dhaafi doonaa linkiga hoos aan soo dhigi doonaa insha Allah. Marka that is one bonus. Bonus number 2 waa kana. Bonus number 2 asana waxaa waa G2. G2 is a website oo asana sameeyo reviews. For example, let's see. The marka ani the reason I wanted to show you guys ana shaqa qabta, ana shaqa aan qabta jirta that I worked here. Reviews. So that is, let's find a software and services that you use at work. Meelahan markino la tusaalahaan haddaan ku dhufto, let's say the accountant, finance and accountant aan ku dhufanaya. Inta markino meesha markaysa you use ku qoran fiiri. kuwan anaa ka bixiyay review waa 4 xabo waa review aan ka bixiyay. Writesonics anaa isticmaalay, Social Blue waan isticmaalay, waa email software. Shopify waan isticmaalay, and then I Coreo kaasna email software asana automation, email automation. Iyo caadi maxaa la dhahay kuba badanaa jireen adii aan ka bixiyay maaragta something, but this is caadi maxaa la dhahay haddii ay jiraan maaragta wax oo adii aa isticmaashay ama familiar ku tahay. Dropbox Professional kan oo kale familiar ku ahay, laakiin I'm not gonna touch it. Familiar ku tahay markino intay kasoo baxayaan. You can also search all adii karta. You can also go back. Marka kan caadi maxaa la dhahay tusaale ahaan, let's say advertising, social media ku jira. Okay, media and communication. Let's click here. Okay. So marka caadi maxaa la dhahay waxaan dhan hadii ay ku jiraan mid ka mid ah isticmaashay aad click siinaysaa. Click markaas siisid wuxuu ku geynayaa website, wuxuu ku geynayaa meel review ka bixinaysid. Hadda tusaale ahaan, okay, let's see inaan tusaale idinka bixiyaa fiican. Okay. Let's choose one. Hal xabba iska dooranayna marka. Let's say email blaster kan. Email blaster, and then waxaan dhahaynahay email blaster kana dooranaysa, and then you continue. Right. Kana marka sidoo kana marka click siinaysa midka aad rabtid. Click markaas siisid caadi su'aalaha waxaan camal waay. How likely is that you will recommend email blaster to other friends? Marka su'aalahan ka jawaabaysa, review inta ku qoraysa, and then next day you continue. Hadda wuu diidaa because wax ma sameeyay mugtahay. Marka waa soconaysa ilaa iyo maaragtida link hadda meeshan soo marhaya. Linkana buuxsamaya, clicks markuu meeshan caadi uu noqdo check oo blue ah soo baxaysa ama green, and then complete soo qoraa. Complete markuu soo qoro, in 2 days email ay ku soo dirayaan lagu baygarinay sheekh. And this guys waxaan ku jeclaaday review-ga waxay qaadanaysaa 10 to 15 minutes, and waxay ku soo dirayaan $10 oo gift card ama maaragta Amazon ama maaragta maxay kale ku soo dirayaan like waxyaalaha kasto maaragta hadda oo ku cusub website-ka. Marka the reason I use balkan waxa waaye maaragta G2-gan is not only this, waxa kale oo isticmaalaa website-yada kale ama maaragta like website-yaal beec ay soo gelinayaan, website-yada kale si ay u isticmaalaan ka baran kartaa. Basically spy camal waaye, spy waaye oo like legal So marka that's that.
and I also want to remind you marka insha Allah intaasoo videogaani ku egyahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo insha Allah si maaragta muuqaal badan aan soo duubno maaragta youtube kala support gareeyo follow and subscribe ku dhan insha Allah ilaa waqti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh